waxaan arkayay qolo yaryar oo garxajisoo YouTube baraaho bariga hore Subayra warka aad wax uga sheegi jiray oo ilaa shalay taa anaga nagu qaylinayay waa fulinimadaanu bariyahan garxajiska ku cabanayay kaga cabanayay bay qayb ka tahay war anagu Subayra walla cidina iskuma kaayo dhufato anaga jeegaan hore ahayn hadeerna barida waxa laga yaabaa inaanu jeegaan cusub noqono saadambena inaanu noqono anaga ku tagnay عندي حكومة إيرانية معارضة أنا واسود وين أنا جا معارضة هنشري أد بقول ما سنتين أد معارضاني أنا توس سامبا لكن وحن ماشي ترين إن أنا جا شرفت يا ميلا قاعد على هذا عيد بادرتي حكومة بادرتي الحكومة اللي جو حق تاع السوبر ده متقني بيلا كلا وحلا جا شيء أبو الرئيس السودان كتب السودان داود السودان محمد السودان عبد القادر السودان ديريه يا السودان حسن سودان كجود بيلها سميرة والسودان حسن سودان عبد الله سودان ديريه جراد بول مركا وحنكلوا ما هذا نغيا ونادي هذا ما هذا نغيا سودان أحمد سودان برة يوفتقوا هجامين ما أنت نقول صبيري حفلة وحنادو ما هذا نغيا سودان كجود بيلها أيوب سودان آدم سودان آمين يا صلادين تكله هدان انت كغدبو waxa sharafno maanta inaanu halkan ku marti qaadno ku soo dhaweyno ugu baaragno saldanada cusub Suldaan Saciid Sheekh Abdikariin Awgeesh ayaa maanta xafladda tan aanu ku casuunay iyo dhamaan madax dhaqameedka beelaha Subayr awal waxaan u mahadnaqaynaa beelaha kale ee Soomaaliland ay ugu horeeyaan waftiga ka socday beelaha Harti warsangal iyo dhulbaantay halkan iyaguna noogu yimi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadka kale ee reer Soomaaliland iyo madax dhaqameedadii kale ee noo yimi boqor Axmed boqor Iimaan iyo waftigii uu hogaaminayay dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin aad nala sharaftaan suldaanka maanta aanu halkan ku sharfaynay ee ku soo dhaweynay waxaan mahad gaar ah siinayaa beelweynta Cabdalla Saacad iyo chiefkooda hogaaminaya ee 12ka caaqil nagu timi halka kan shalayna ay nagu casuntay hotelkii Dholayare ee xafladda lagu qabtay haddaan intaa ka gudbo waxaan maqlayay miirihii oo nimankii YouTuberadii oo shaqo kale waayo anaga nagu soo rawaxay waxaan leeyahay war anagu Subayra walla ma kala qaybin dhaqan baanu nahay ina ciraya xukuumaddiisuna namana diran karto oo kagama wakiilnihiin casumaadaanu tagnay casumaada waxa nagu casumay 12 caaqil iyo culimadii iyo nin garboodkii beesha Cabdalla Saacad suldaankay noo keenayna waanu la qaadanay nin maqana anagu ma kumaan xumaynayn sharaftii reerkaasi uu waday ee noo keenay dhaqanku sidoo ahaan jiray iyo suldaanka guud ee beelaha Subayr awal iyo salaadiintii kale ee beelaha Saacad Muuse iyo Ciise Muuse Subayr awal ee noo yeeray casumaada noogu yeeray baanu anagu sharaftooda ku tagnay waxaan maqlayaa ilaa xalay wax la yiri Muuse Biixi iyo madaxweynihii hore rag baan maqlayay waa la aflagaadiyay war anaga madaxweyne Muuse Biixi wuxuu noogu qoran yahay madaxdii qaranka soo martay madaxweyne naga sharfan xageeyga weeyii waqtigaanu siyaasadda isugu jiray maaha waqtigaanu isu jawaabaynay maaha karaamo iyo xurmad buu naga muday anaga Muuse Biixi meel lagu dhaleecaynayna waxa weeye waa astaan qaran si fiican oo sharaf leh xilka u wareejiyay u tartamay madaxweyne Muuse Biixi waa astaan qaran waqtigii iyo takay wax la oranayayna kursigu joogo kursiga iska leh in wax laga sheego laakiin ninka maanta wax ka sheega Muuse Biixi waa nin aan hadii aan la leeyahay habeen jirin weeye waa madaxweynaha halka inoo fadhiya karaamada leh buu inoo kamid yahay annaguna xumeyntiisana uma taagna tala dhaqan baan talada maanta weeyaan ee halkan casumaada ugu qabanayna taa annagoo ka jawaabayna casumaadii shalayto iyo dhaqanku sidoo ahaatii weeye midaanu cidna ku xumeynayna maaha midaanu qabiil ku kala qaybinayno maaha midaanu cid wax ku leenahay maaha waxaan arkayay qolo yaryar oo garxajisoo YouTube baraaho bariga hore Subayra warka aad wax uga sheegi jiray
oo ilaa shalay taa annaga nagu qaylinayay waa fulaynimadanu bariyahan garxagsiga ku cabanayne kaga cabanayne bay qayb ka tahay war annagu subeer awal cidina iskuma kaayo dhufato annaga jeegaan hore ahayn haddeerna berina waxa laga yaabaa inaanu jeegaan cusub noqono saa dambena inaanu noqono waxaan baarigayaa oo soo dhaweynayaa suldaan xasan suldaan cabdilaahi shirka oo ku baaqay waana ka soo qayb gelaynaa suldaan annaga waxaanu subeer awal oo midaysan maanta suldaan maanta inaad dadkii ururisaa lagaa rabaa iyo ragga siyaasiyiinta ah reerka in hadday siyaasadda wax ka doonayaan suldaankoodii baa tahay haddaanay waxba ka doonayna suldaankoodii baa tahay adaa lagaa rabaa beelihii subeer awal inaad ururiso annaguna shirkaana waanu kaala soo qayb gelaynaa waana baarigaynaa waana soo dhaweynaynaa midnimada reerkana waanu baarigaynaa waxaan u malaynayaa ciddii wax ka dhexdayaysa casumaaddaa shalayna sameeyey tan aanu maanta samaynay wax ku dhex jiraa ma jiraane waa tii casumaadii iyo karaamadii loo samayn jiray madax dhaqameed la maamuusayo waxaan aad iyo aad uga xumahay in la yidhaahdo ciro annaga nala ku shaambadeeyo iyo dowladdiisa oo leedayaa dabada ka riixaysa war annagoo annagaa ikhtiyaarkaya ku tagnay annagay milgihii noo muuqatay naloo ku yeedhay annagaa milgaheedii iyo maamuuskeedii ku tegnay annagaa ku tagnay ciddii xukuumadda eryanaysa ee mucaaradana waa soo dhaweynayna annagaa mucaarad ahaan jiray aad baa ugu mahadsantihi inaad mucaaradaan iyo inaad toosisaanba laakiin waxaan meesha jirin in annaga sharaftayada meel lagaga dhaco layado cid baa diratay xukuumad baa diratay xukuumadda lagu xagxagto casubadaanu tagnay beelo kale wax lagaga sheego waxa weeyaan waa arrin dhaqan arrinta dhaqankana 11 caaqil ninka u yeedheen diidaa waa nin cabdalla sacad diiday berita hadday cid noo keenaana sidaasaanu u iman lahayn cid kale oo jiif caaqiladooda iyo odayaashoodu noo keenaana saasaan ugu baarigaynaa ugu imanaynaa arrinkana intii xoogaagii miidiyahooda wadayna intaasaan ka odhanayaa suldaan soo dhawow baanu ku leenahay ilaahay xilkaa lagu igmaday ha kugu barakeeyo waxaan aad u bogaadinayaa beelweynta garxajiso iyaduna berita casumaada leh iyo saa dambe iyo beelweynta arab oo suldaan axmed suldaan barre uu ku dhawaaqay isna inuu casumaada dambe leeyahay intabana waa ka soo qayb gelaynaa aad iyo aad baa u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu